آمين. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. mahadda rabbi kadib bacda shukri illaahi tabaaraka wa tacaala waxaan ku shukrinayaa mudane madaxweyne muuse biixi cabdi, mudane cabdiraxmaan cabdilaahi zaylaci, mudane cabdirasaaq khaliif iyo raggoo dhan culamaa udiinka sheekh mustafa iyo raggiisa, bahda saxaafadda, dhalinyarada. ilaahay subxaanaه wa tacaala wuxuu ina waafajiyey inaan somalilan dowladdayadii, xukuumaddayadii, dhulkeennii aanu nimi. sheekh cabdirashiid sheekh cali suufi oo ah caalim qaari ah oo muqri ah oo mustawihiisu uu dhaafsan yahay soomaali ama qaarad adduunkao dhan raqam wanada ah, raqam waaxidka ah, oo sheekh ibna sheekh ah. marka waxaa sharaf weyn inoo ah mudane madaxweyne muuse biixi cabdi inuu nagu soo dhoweeyey somalilan. waxaan bacda shukri illaahi tabaaraka wa tacaala shukri ballaaran u gudbinaynaa madaxweynaha, xukuumatan wa shacban. intaanu joognay waxaanu daraynay inaanu joogno dhulkayagii, dowladdayadii, dadkeennii, da'yar iyo da'weyn, dumar iyo duqey, dhammaantood qulubtay noo fureen. halkaanu tagna waddadaaba mari waaye anigu cashooyinkan oo dhan. war waa janankii ma aqaan meelaan isku baranayo, malaha intii yareed oo kaftanka ahayd oo aan xaajiga hawada u soo mariyey. waxay ugu dareed markaa soo galay madaxtooyada, corneel baa salaanta taagay oo war waa janankii. marka dee taana meel ha ii taal. mudane madaxweyne, si ballaaran oo aanan kala har lahayn ayaanu u jeclaanay somalilan. dareenkayagu ama maxay ahaydayay qalbigayagu ama intaanu joognay maxay ahaydayay somalilan, waxaanan jacayl ahayn, waxaanan wanaag ahayn, waxaanan soo dhoweyn ahayn kalama aanan kulmin xukuumadda iyo shacabkaba. taana qalbigayaga saameyn xoogan bay ku reebtay. anigu hadalka badin maayo, culimmadii baa joogta, raggii waa ku dhan yahay, dal iyo dibad ka yimi, nin doorkii oo dhan baa jooga. waxaan mar labaad iyo mar saddexaadba ku shukrinaynaa madaxweynaha iyo xukuumaddiisa iyo maxay ahaydayay shacabka. mar iyo laba iyo saddex iyo intaanu doonnaba waa soo noqnoqonaynaa. waxaana tahniyad ballaaran halkan ooga dirayaa shacabka somalilan meel kastay joogaan. waxaanu leenahay nabad iyo baraare iyo barwaaqo ku noolaada. ilaahay subxaanaه wa tacaala cizi iyo sharaf allah idin kordhiyo. annana waa idin ducaynay, waana idin maxay ahaydayay karaamadii aad inagu soo dhoweyseen oo culimmada halkay idinka joogto oo aan maxay ahayda idinka dareennayna dee taariikhdaa qoraysa. sida uu wasiirku yidhi, halkan waa meeshii ugu horreysay oo aanu ka doorannay carra soomaaliya, soomaali meelay degan tahay oo dhan. taasina runtii waa inaad maxay ahayday noo ogaataan. marka intan oo kale ani iyo culimmadeennaba in aan imaado, maxaa yeelay nabadda ballaaran oo taal, maxaa yeelay wanaagga yaal, maxaa yeelay culimo jacaylka iyo diinta taal. maalin dhoweyd baa waxaa ka dhacday hargeysa musaabaqo qur'aan oo aanan adduunka, sida uu sheekh cabdirashiid ba markhaati ka yahay, 10 qiraa'oodoo qur'aanka ayaa waxaa lagu qabtaa kuwait iyo meelo dhowra. haddayan kuwait ba ku koobnayn, kuwait keliya weeye.
waxaa ka qayb gala, waxaa loo diraa maxay casumaad adduunka oo dhan, carab iyo cajam iyo meel walba. waxaa ka soo qayb gala 14 keliya, markay ugu badneed 14 13 sheekh sidaa ma tahay waa Kuwait. casho dhawood bishii hore halkan waxaa ka dhacday Hargeysa Somaliland, musaabaqada 10 qiraa'o lagu tartamayay, waxaa ku tartamay dhowr iyo 20 tartame, taariikhda ma ka dhicin intaan ognahay. waxaa taa raacda waxa tartamayay waxay ahaayeen wiilal iyo gabdhaba. waa mid kaloo aad iyo aad ii soo jiidatay, waa waxa inagu xambaaray in aan ku nuuxnuuxsanno oo go-aan adag ka gaarno halkan inaan mu'tamarkaa ku qabanno. marka shacabka iyo xukuumadda iyo maxay ahaydayay madaxdaba iyo mudane muuse bixi cabdi waxaan ugu tahniyeynayaa sida ay u garab taagan yihiin diinta iyo maxay ahayd. habeen dhaweed muusan dhegaysanayay madaxweynehayga baan dhegaysanayay oo leh diinta islaamka ilaalinteedu dushay iga saaran tahay, oo wixii yaroo ka dhaca oo maxay anigu ilaahay aakhira ay qabsanaya. aad iyo aad baan ugu farxay, hadal diiran oo qiimihiisa leh. marka mudane madaxweyne halkaagaa ka wad diin u gargaarka, diin ilaalinta, maxay ahayd culimo soo dhoweynta, culimo karaamaynta. dee annana waa idiin ducaynaynaa.